carabta waxaana mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani ay sheegeen in gebi ahaanba ay joojiyeen wada shaqayntii ka dhaxaysay guddida doorashooyinka shalayto iyo doraadba gudoomiyaha xisbiga wadani ahna musharax madaxweynuhu wuxuu yimid komishanka doorashooyinka qaranka xaalado badan oo cabasho leh saameyn tabarna ku yeelanaya doorashooyinka ayuu musharaxu kala hadlay komishanka doorashooyinka qaranka shalayna waxay codsadeen in qoraal lagu soo gudbiyo cabashooyinka iyo waxyaalaha uu xisbigu ku codsanayo in la yeelaba wuxuu ku gudbiyey qoraal rasmi ah ayuu ugu gudbiyey komishanka waxa ugu sii weynaad gobolka Maroodijeex sida degmada Gebile tirinta codadka iyo xaaladeeda guud oo ma garanaysa runtii aad ugu hadlay musharaxu qoraalkana aan ku sheegnay iyada iyo qaybo kale oo kamid ah gobolkaba arintaas oo ilaa imaka komishanka doorashooyinka qaranku talaabo uu ka qaaday aanu ku soo celinin musharaxii hawshiina ay sidii u socotay annagu komishankii xubnihii ee u metelayay xisbiga laftayda wax war ah oo nalaga siiyay oo la yiri ku wargaliya xisbigii sida ma jirtay ilaa saacada aynu joogno sidaa darteed waxaa nala haboonaatay nala gudboon inaanu ku celino mas'uuliyiinta xisbiga siiba musharaxii xisbiga ahna gudoomiyihii xisbiga inaanu ku celino arintaasi halkay maraysa iyo laymaka inaana wax wara aan ka hay arrimahan doorashooyinku waa asaasi haddii arrin laga soo cawdo oo dhaqso wax looga qaban waayo wax badan buu saameyn badan buu keenaya cabashadaas keenaysa haddii wax laga qaban waayo ama ha aqbal ama uu aqbalin go'aanka uu komishanku arrinka ka qaatay waxay inuu ku soo celiyo musharaxii gudoomiyihii oo uu ku qanciyo maana filayda in hawshuna iska socoto saadirteed laga bilaabo hadda dhamaantaas fooriska gobolada iyo degmooyinka waxaan hakinana saacadan laga bilaabo ilaa iyo go'aanka xisbigu uu ka soo saarayo inaanu shaqadii joojino waxyaabo badan baa dhacay oo mushkulada saadirteed ma sii wadi karno hadda go'aankana xisbigan ku celinayna dhibaatooyinka jira komishanka dawlad u gudbinay qoraalaan u gudbinay dacwadooyin u gudbinay waxaan u gudbinay inay wax ka qabtaan waxaan u gudbinay inay nala eegaan laakiin ilaa iyo imaka wax nala eegayna ma jirto waxyaabaha aanu haynana wax fara badan oo baanu haynaa oo ah inay xuduudii xaydaamkii sharciga ka baxday waxa kamid ah in codadka ku jira dhamaantood ay voter yihiin sanaaduuqda xisbiga kulmiye loogu codeeyay kani waa buug ay soo daabaceen xisbiga kulmiye uu soo daabacay waa buug waana waxa ku jira sanaaduuqda hadda yaala Hargeysa yaala Berbera yaala Boorama iyo meelo badan oo kale ba yaala saadirteed waa buugga codaynta lagu codeynay xaashadii lagu codeynay weey waxyaabaha aanu leenahay hal la eego waxyaabaha aanu leenahay hal la jeegaro waxyaabaha aanu leenahay hal la tiriyo oo dib loo eegana taasa kamid ah markaanu aragnay aanu dhacdooyin badan oo kalena aanu hayno insha Allah waan soo bandhigi doono marka ay xilligeeda ku haboonaato ayaanu hakinay waxaananu go'aanka dambeystaan xisbiguna uu haystaa bugaagsan uu hayaa iyo dhacdooyin badan kun iyo dhowr boqol oo dhacdaan diiwaan gelinay oo ay komishanku dhagaha ka fureysteen buugana darkiisaan waxa weeyaan waa buug dhamaantii xaashadiisu serial markiisu ay marka buugana waa buug la soo diyaariyay oo lala soo diyaariyay bugaagtii komishanku ay soo daabaceen marka kulmiye yaa gaarsiiyay buugan laakiin kambanigii horena waan uga hadalnay komishanka waanu gaarsiinay marka horeba inaan consent ka qabno kambaniga waraaqaha soo daabacay Abu Qurayb inaan consent ka qabno komishanku way ogaayeen haddana kambanigii waraaqaha soo daabacay baa kuwana soo daabacay oo laga soo daabacay kambanigaasina waxa weeyaan waa kambani imaaraadka laga leeyahay imaaraadka iyo xisbiga kulmiye xiriirka ka dhaxeeya waa ogtihiin Soomaaliland ba uu iibsaday
noo muuqatay in la soo daabacday waraaqihii lagu codayn lahaa buuggan aad arkaysaan maaha buug forgery waa buug asal ah waa buugaagii lagu codaynayay buug walba page wal oo ku yaala waxa ku taala shaabadii ma sheegayo deegaanka uu ka yimi laakiin waa la heli doonaa doorashooyinka gobol kasta oo Soomaaliland kamid ah xisbiga wadani baa hogaaminayay markii dambe ayay la soo baxeen baxaladan iyo sanaaduuqdii ciidankii baa la adeegsaday commissionkii baa la adeegsaday cid walba waa la adeegsaday Cabdiraxmaan Abdullaahi Fantastic SAB TV Hargeysa